xiisaynayso inaad hab online u barato luqadda Axmaariga, fadlan ku soo biir Digo Online Language Academy. Nagala soo xiriir WhatsApp nambarka shaashada ka muuqda. Tobnaad, magacyaalada tilmaamayaasha. Magacyaalada tilmaamayaasha waxaa loo isticmaalaa inay tilmaamaan magac wax u taagan ama shay wax u taagan inay tilmaamaan ama ay muujiyaan. Af-Axmaariga waxaa lagu yiraahdaa amalkaaj tawlaatasam. Amalkaaj tawlaatasam yaa lagu yiraahdaa Af-Axmaariga. Nagarooj weyn ሰዎችን ለማመልከት መጠቆም የሚያገለግሉ ናቸው። waxaa loo isticmaalaa in lagu muujiyo ama lagu tilmaamo shayaalada ama dadka ayaa loo isticmaalaa magacyaalada tilmaamayaasha. amalkaaj tawlaatasam nagaroojin weyn ሰዎችን ለማመልከት ወይም ለመጠቆም የሚያገለግሉ ናቸው። afar ka mid ah ayaan soo qaadanaynaa. waxaa ugu horeeya yaa sida ay tahay af Soomaaliga loogu dhawaaqayaa yaa waa kaa macnaheeda waana wax lab ah ama shay lab ah ama qof lab ah. waxaa ku xiga yaaj iyadana waxaa loo isticmaalaa in lagu tilmaamo qof dhediga ama shay dhediga. waa taa macnaheeda. yaaj macnaheeda waa taa laakiin waa dhedig. saddexaad النزيه waxaa loo isticmaalaa dad ama shayaalo jamac ah, waa plural laakiin way dhow yihiin. waa tilmaan dhow weeyaan. النزيه marka la yiraahdo waa kuwan macnaheedu. kuwan waxay noqon kartaa shayaalo fara badan ama dad fara badan. kan afaraad النزيه waa kuwa, waa tilmaan fog weeyaan. waa kuwa macnaheedu. marka afartan yaa ka mid ah magacyaalka tilmaamayaasha. እነዚህ አራቱ አመልካች ተውላጥም ናቸው። ያ ዋታ ዋካ ያጅ ዋታ እነዚህ ዋኩዋን እነዚያ ዋኩዋ። marka afartan waxay ka mid yihiin afartan magacyaal ee tilmaamayaasha oo casharkeena tobnaad uu ku kooban yahay. aad xiisaynayso inaad hab online u barato luqadda Axmaariga, fadlan ku soo biir Digo Online Language Academy. Nagala soo xiriir WhatsApp nambarka shaashada ka muuqda.